mashruucan Ocean Petroleum oo ah keedka shidaalka ee Puntland ugu weyn ayaa waxaa xariga ka jiray maanta madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni oo ku sugnaa maalmahan magaalada Boosaaso. Maxamuud oo kamid ah ganacsatada iyo mas'uuliyiinta xarunta keedka shidaalka ayaa ka warbixiyay mashruucan iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray. mashruucan waxaan wadnay muddo 2 sano ah. arrimo badan iyo hawlo badan baa naga soo qabsaday hase ahaatee ugu dambeyn ilaahay waa noo dhameeyay. insha Allah mashruucani wuxuu ka kooban yahay waa shidaal kabaasatigiisuna waa 15,000 oo tan. insha Allah marka 15,000 oo tan marka insha Allah haddana waa noo dhamaaday. waxyaalo badan oo caqabad ah oo dalkeena ka jira way jiraan oo aynu hodan ku nahay. waxa kamid ah oo dhibaatooyinkii ugu badnaa ay naga qabsadeen waxa kamid ah biyaha, waxaana kamid ah korontada. wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Puntland Axmed Tahraan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay sida ugu dhaqsiyaha badan wax uga qaban doonto caqabadaha ganacsatadu ay sheegeen in ay ka haysato mashaariicda horumarineed sida korontada iyo biyaha. wasaaradda tamarta inay dhiiri geliso khidmaadna u samayso mashaariicda noocaan ah aad baad ugu mahadsantihiin. caqabadaha uu sheegay Maxamuud oo ah korontada iyo biyaha insha Allah waxaan filayaa dhawaan in laga bixi doono. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Deni oo ugu dambeyntii xariga ka jiray goobta ayaa sheegay in ganacsatadii ku dhiiratay maalgashiga dalkooda dawladdu ay ahmiyad gaar ah siin doonto. mashruucan wax badan in laga sheego ma baahno isha macallina. waad aragtaan waa mashruucii ugu horeeyay noociisa ah. dhinaca capacity ama xajmiga uu qaadayo iyo dhinaca sida loo sameeyay oo habraaca ama standardka loo sameeyay iyo waqtigu ku soo beegmaba intaba waxay muujinaysaa in maalgashiga iyo dalku inuu hore u soconayo ayay muujinaysaa. meelihii laga aasaasayay horumarka ayuu qaybtiisii qaateen si loo dhiirigeliyo ganacsatada maalgashiga samaynaysa oo helaan koronto iyo biyo ku filan oo aasaasi u ah mashaariicda qaybtood abuuraya shaqooyinka. waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo inay culayska dekedda saaranna mar dhow laga qaadi doono oo terminaalkii baybka laga soo dejinayay shidaalka oo ka madax bannaanaado dekedda gudaheeda. dhinaca kale madaxweyne Saciid Cabdilaahi Deni ayaa sheegay in magaalooyinka wax soo saarka leh la geeyo maalgashiga dawladduna ay qiimo dhimis u sameyn doonto ganacsatada iyadoo markasta ahmiyadda gaar ah siin doonta dadka dalka gudihiisa maalgashi ku sameynaya. waxaan rajaynayaa dawladdu qaybaheeda kala duwan wasaaradda iyo gobolka iyo degmadaba inay aad ula shaqeeyaan dadka dalka maalgelinaya, dhiirigeliyaan, shuruucda u baahan yihiin u sahlaan, caqabaad aan lagu noqonin. intaasaan insha Allah mar walbana farayaa, haddana aan u sheegayaa midaasaa dalkeennu ku horumari karaa, dadkeennuna shaqo abuur u heli karta. waxaan rabnaa magaalooyinka wax soo saarka leh in maalgelinta la geeyo. waad ogtihiin xeebaheenni waa bannaan yihiin, dhulkeenni khayraadka lahaa waa lagu soo yaraaday, waxaa la isu beddelay IDBs. waa keedkii ugu horeeyay ee shidaalka oo muddo 21 sano ah Puntland ay jirtay ay yeelato taasi oo ay hirgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed. madaxweynahuna maanta uu xariga uu ka jiray waxaana la filayaa in madaxweyne Saciid Cabdilaahi Deni intuu joogo Boosaaso uu xariga uu ka jiro mashaariic kale oo gobolka laga hirgeliyay.